بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم waxaan wax yar oo kooban ka sheegay hadii Ilaahay yiraahdo maalka ummadda oo magaca dawladnimo lagu boobo lagu qaato ee bangiga laga buuxsado guriga lagu dhisto oo lagu tasarrufo dhibaatada ka dhalanaysa intaan aakhire la gaarin adduunyada dhibaatada ka dhalanaysa ama ka dhalan karta ayaan wax yar oo kooban ka sheegayaa kitaabka la yiraahdo siyaasada sharciya fi islaahi raa'i wa ra'iya oo ibn Taymiyyah uu qoray safxada 23aad wuxuu ku soo arooriyay qisa cajiib ah dawladii reer bani Abbas nin kamida oo rag khulafada ah ayaa waxa la weydiiyay oo niman culimo ay weydiiyeen an yuhadithu amma adraka inuu wax uga sheego wal wixii uu arkay inta uu noolaa faqala ninkaas markaa wuxuu yiri waxaan haleelay buu Umar ibn Abdul Aziz ayaan soo gaaray isagoo markaa khalifa oo wax maamulaya Umar ibn Abdul Aziz khaliifkii muslimiinta ama amiirul mu'miniin ayuu ahaa 2 sano iyo dhowr bilood ayuu xukunka hayay waxa la yiraahdaa waa khaliifkii shanaad ee afarta khulafa oo raashidiin ku xigay xagga cadliga iyo xagga wanaaga qiimo badan baa laga sheegay waxa la yiri markuu sii dhimanayay ayaa waxa lagu yiri ya amiir almu'miniin aqfarta afwaha banika min hada almal wa taraktahum fuqaraa la shay'un lahum arurtaadi afkaad qabatay baa la yiri oo maalkan oo kan ah oo aad maamuleysay ayaad ka hoojisay oo aad ka xarimtay baa la yiri oodan siinin iyagoo fuqara ah ayaadna ka tagaysaa waxba haysan baa la aduguna sakaraad baad maanta tahay markaasna Umar wuxuu ahaa xaaladu marka sakaraad ayuu ku jiray laakiin ma uusan miyir daboolmin inta markii lagu yiri wuxuu yiri ii soo galay caruurtii ayaa loo soo galiyay iyagoo dhowr iyo 10 oo wada rag ah oo wada wiilal ah laysa fiihim baaliqun falamma ra'ahum darafat aynaahu markii loo soo galiyay oo mid qaan gaar ah uu ku jirin dhowr iyo 10 kuba ay caruur yar yar oo isdaba wax yar kala weyn ay yihiin ayuu ooyay baa leeyahay tuma qaala markaa wuxuu yiri ya baniya wiilashaydiyo wallahi ma mana'tukum haqqan huwa lakum wa lam akun billadhi akhidhu amwal an-nas fa adfa'uha ilaykum wa inma antum ahad rajulayn maal aad lahaydeen oo xaq u lahaydeen in kama mamnuucin idinama diidin maal dadka la leeyahana anigu mid idin siinaya oo xaraan oo ku koriyay maahi ama idin siin lahaa maahi buu yiri ee wuxuu yiri laba baa mitihiin maanta haddana nasi dhimanayo adikuna aad sidaa tihiin laba baa mid noqonaysaan oo yiri haddaad kuwa saalixiin noqotaan oo ilaahay ku xiran oo diinta ilaahay u khidmeeya oo dad wanaagsana ilaahay baa marka taladiina tawallinaya waxna idinka halaabi mayaan ayuu yiri wax kasta way idin hagaagayaan amma haddaad noqotaan kuwa aan saalixiin ahayn oo mufsidiina maal aad macaasi ku samaysaan oo idin sahla inaad macaasi ilaahay ku samaysaan anigu min idinkaga tagaya maahi yiri mana uga tagin baba qoomo anni iga istaaga yiri marka waxaan ninkii hadalka sheegay uu yiri culimadu weydiiyeen wuxuu yiri waxaan indhahayga saaray uu yiri caruurtii Umar ibn Abdul Aziz mid kamid ah oo dhowr iyo 10 kamid ah oo marka intuu hana qaaday ee weynaaday oo Ilaahay maal siiyay 100 faras fi sabilillah asoo ku deeqay ayaan arkay buu yiri oo maalkiisa meel la kala dhiga la waayay adba Ilaahay hanti badan ugu shubay ninka saayeelaya oo Umar ibn Abdul Aziz waxa la yiri wuxuu madax ka ama khaliif ka ahaa dhulka la yiraahdo bilad al-Andalus oo Spain la yiraahdo Morocco waqooyi Afrika oo dhan Masar illa muxuu ahaa Turki illa Sham Iraq jasiiratul Arab Sacuudiga illa Yaman intaas oo idil ayuu ninkaasi ka ahaa madax oo khaliif ka ahaa haddana markuu dhimanayay waxa la yiri caruurtiisii wuxuu kaga tagay baa la yiri kiiba oo ka dhaxleen 20 dirham wax ka yar 20 dirham oo $20 ka soo qaadba
saddex boqol oo dollar wax la mid ah ama saddex boqol iyo xoogaa dollar oo dirham oo dollar kale u dhigma macnaha lacagtu waa un lacag ayuu carruurtiisa kaga tegey iyo isagoo aan wax uu kaga tega laakiin allah buu uga tegey cadligii uu u beeray wanaaggu u sameeyey ee marka laba sano bar isagoo xukunka haya ummadda muslimiinta gaarsiiyey wanaag uu lahaa in maalkii sakada baytulmaalka wax qaataba la waayo ee marka bunuugtii lacag meel laga dhiga la waayey barwaaqo ninkii ka tegey awlaadiisa ilaahay u xiftiyey aad bayna waxaa la yidhi wax badan ay kaga macaasheen waana la arkay taas waa qiso wuxuu isla ninkaasi sheegay oo isla kitaabka ibnu taymiya uu ku soo arooriyey waxaana na goobjoog u ahaa inuu yidhi nin rag isna ka mid a ragga khulafada ahaa ama amiirulmu'miniin ee soo maray xukunka markuu dhimanayay inuu carruurtiisa mid walba ama mid kasta uu uga tegey 600 oo kun oo diinaar bal fiirisha 600 oo kun oo diinaar iyo 20 dirham wax ka yar wax isku mid ahaa diinaarkuna dahab buu ahaa waxaan arkay buu yiri walaqad ra'aytu ba'dhum yatakaffafu an-nas ay yas'aluhum bikaffihi waxaan arkay buu yiri qaar ka mid ah oo dadka baryaya nimankii maalka lagaga dhintay oo dadka gacmo hoorsanayo jidadka taagan oo la yaa wax isii waxay ugu sadaqaysanayaan ayaan arkay buu yiri muddo dheer ba kama soo wareegay ninkan waa nin caadi ah marka wuxuu arkay ayuu sheegayaa walaalayaal zamankan hadda aan joogno waxaan ognahay magac dawladeed ama xilal ummadda inta la soo raadsado oo Yurub iyo Ameerika iyo meelo kale fog laga yimaado ee marka la halkaani ka godlan tahay maalka ummadda saa loo boobo inuu wuxuu boobo isagoo baasaboor ajnabi ah meelihii uu ka yimid inuu kula noqdo ayaan aragnay ee uu marka la aaday marka uu wadan gaala ee fog intuu carruurtiisii geystay dadkan Soomaaliyeed oo dhowr iyo 30 sano dhibaato iyo xabad iyo dawlad la'aan ku noolaa oo aad ogtihiin abaaraha iyo dhibaatooyinka ummadan iyo nabadgelyo darrada iyo dawlad la'aanta iyo dhibka haysta ummadan ninkii inta maalkiisa qaata meel fog la taga ilaahay subxaanahu wa ta'ala meeshaas uu tagay uu jooga ha ogaado allah meel walba waa uu jooga laba ilaalis ayuu daba dhigay ilaahay hortii markii la weydiiyo wuxuu ku jawaabi lahaa isaga og waxaan ognahay kuwa badan oo anagu soo gaarnay ee maalka ummadda lagu saliday oo hantida ummadda magac xil ay u hayeen ku qaatay cudurro aan la daweey karin ay ku dhaceen ayaga iyo carruurtooda iyo xaasaskoodina dhibaatooyin aan hadda afka ku bayaanin karin oo sheegistii sax inaan sheega xataa aan ka yaxyaxayo ayaa ku dhacday midka aysan ku dhicinna ilaahay wuxuu yiri sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun waan samayna waan kulkolinayna hal mar baan markta yan qabanaynayo ilaahay subhanahu wa ta'ala nabigeena wuxuu yiri alayhi salatu wasalaam daalimka waa loo suga waa la taajiya hal mar baa la qabanayaa ilaahay yiri markaan qabanana ma sii deynina ayuu yiri aakhire inta la gaarin adduunyada ku duloobaysa xaqiiqatan dadka aan arkay oo dhibaatada iyo faqriga iyo colaadda ku nool magaalada hadda aan joogo kama fahlay karo dhibka ummadda haysta ninkii wixiisa cuna ma badbaadayo xilliga laga sheekaynayo waa xilli hore oo dhowr boqol sano laga joogo uquubada la arkay ma dadkuna dadka way ka dhib yaraayeen dawlad bay haysteen ya adli bi ku hoos noolaayeen waxa la xado laakiin islaamka ayaa shaqeynay maanta waxaad u maleynaysaa marka dhibkan dadka haysta ninka wuxuu cuna walaalayaal qisadaas ayaan rabay marka inaan idin la wadaago ilaahay subhanahu wa ta'ala hanaga badbaadiyo oo ilaahay naga ma dhigo kuwa inta xil loo dhiiba goor habeen oo gudcur ah maalka dadka inta u dusa sidii jiirka dhinac ka cuna ilaahay naga ma dhigo allah naga badbaadiyo waa aafo khatar ah amalka qofka bartana wax xaqiiqo ah inuu san ka waantoobeen rasuulkeena wuxuu alayhi salaam maal xaraan ninka cuna jirkii xaraan ku barbaara oo ku kora naar baa u awlaa ilaahay subhanahu wa ta'ala koonkaana bilaash uma sabaynin naartana bilaash uma abuurin dadka wax loo abuurana waa inay ku cibro qaataan oo ay ogaadaan Allah xisaabiinaya inuu ka dambeeyo haday maanta jirin maxkamad iyo sharci ku ilaalinaya Allah ayaa ku arkaya waana lagu sugayaa maalinta qiyaamaha inta ay hadalka ku soo koobaya billahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa